Dowladda Iiraan ayaa jawaab degdeg ah ka bixisay weeraradii loogu dilay talisyadii kala duwanaa ee ciidamada dalkeeda iyo saraakiishii muhiimka ahayd iyo saynisyahanadii dhanka iyo nukliyeerka. Jawaabta ay bixisay dowladda Iiraan ayaa waxa uu noqday mid wadna qabad ku noqday Israa'iiliyiinta ama Yuhuudda iyo sidoo kale xulafadooda oo Mareykanka uu ka mid yahay. Iiraan waxay xalay furisay qaar ka mid ah duqeymihii ugu xoogganaa, iyadoona lagu kala cararay garoomada diyaaradaha ee ku yaala magaalada Tel Aviv ee caasimadda dhulka Yuhuudda ay ku haysato xoogga. Wararkii ugu dambeeyay ee halkaas ka imaanaya waxa ay sheegayaan in dowladda Iiraan ay hadda si weyn u guuleysatay xakameynta hawadeeda, iyadoona gacanta ku dhigtay mid ka mid ah duuliyayaashii diyaaradaha duqeymaha kala duwan ka fulinayay halkaas. Waxaa sidoo kale lasoo wariyay inay ka hortageen duqeymo kala duwan iyo gantaallo ay soo tuureen Israa'iiliyiinta ama Yuhuudda. Waxaa sidoo kale lasoo warinayaa in xaaladda guud ee Bariga Dhexe hadda ay tahay mid mashquul ah. Hawada Bariga Dhexe ayaana jaam fara badan uu ka jiraa, iyadoona kala carar xooggan uu ka dhex jiro guud ahaanba. Waxaa sidoo kale lasoo warinayaa in dowladda Iiraan loo daatay sirdoonkeeda, iyadoona duqeymihii iyo weeraradii xoogganaa ee halkaasi ka dhacay la sheegay inay fududeeyeen xubno fara badan oo ka tirsan sirdoonka Iiraaniyiinta. Dilka loo geystay saraakiishooda ayaana waxaa hadda la sheegay in loo xirxiray xubno fara badan oo sirdoon iyo saraakiil isugu jira, kuwaas oo ka tirsanaa dowladda Iiraan. Kadib weeraradii ballaarnaa ee Israa'iil ku qaaday xarumihii nukliyeerka iyo bartilmaameedyada ciidan oo Iiraan leedahay, waxaa dib loo xasuustay hadallo horey uu u bixiyay madaxweynihii hore Iiraan Maxamed Cabdinajaad, kuwaas oo ku saabsaneyd sirdoonka Mossad iyo sida uu ku sheegay in si qoto dheer ugu dhex milmay hay'adaha amniga Iiraan. Cabdinaajid ayaa bishii Oktoobar 2024 wareysi uu siiyay CNN Turki waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan sirdoonka dalkiisa. Wuxuu yidhi, "Waxaan dhisnay unug ka hortagga Israa'iil, laakiin qofkii hogaaminayay wuxuu noqday sargaal ka tirsanaa Mossad," ayuu yidhi. Wuxuu intaasi ku daray in sargaalkan uu kormeeray 20 wakiilo oo kale, kuwaas oo lagu eedeeyay inay mas'uul ka ahaayeen xatooyadii dukumiintiyada barnaamijyada nukliyeerka Iiraan 2018 iyo dilal qorsheysnaa oo lagula kacay saynisyahano Iiraaniyiin ah. Waxa uu carrabka ku dhuftay in madaxa waaxda Iiraan u qaabilsan ka hortagga Mossad lagu aqoonsaday sanadkii 2021 inuu ahaa basaas u shaqeynaya Israa'iiliyiinta. Israa'iil waxay gudaha Iiraan ka fulisay howlgallo aad u murugaysan, wuxuuna si sahal ah u heli jireen xogaha muhiimka ah, laakiin ilaa iyo hadda Iiraan kama aysan hadlin arrintan. Hadalladaas ayaa dib u soo baxay xilli Israa'iil ay weerar xooggan fulisay, iyadoo weerarada Israa'iil ay fulisay lagu sheegay inay ahaayeen kuwo loo fududeynayo xogtooda. Israa'iil duqeymaha kadib way hadashay, waxayna sheegtay in sirdoonka Iiraan qaybta ugu badan ay ka qaateen in duqeymaha ay fuliyaan. Si guud waxaan eegaynaa weeraradii xalay dhacay. Waxaa sidoo kale lasoo warinayaa in Netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca ee dalka Iiraan ay ku jiraan godad dhulka hoostiisa ku yaala, sida warbaahinta CNN ay soo warinayso. Waxaa sidoo kale lasoo wariyay in xubno fara badan oo ka tirsan mas'uuliyiin fara badan oo ka tirsan Yuhuudda si cabsi darteed looga daadgureeyay waddankaas, iyagoona qaarkood la geeyay wadamo fara badan oo qaaradda Yurub ku yaala. Diyaaradihii kala duwanaa ee lahayd Israa'iiliyiinta ayaa waxaa sidoo kale lasoo wariyay in laga daabulay garoonka diyaaradaha Tel Aviv iyo garoomada kale, waxaana iyaguna loo qaaday wadamo qaaradda Yurub ku yaala. Wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Iiraan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ciidankeeda cirka Iiraan ku guuleysatay inay dhulka soo dhigaan 2 diyaaradood oo ka mid ah nooca ugu horumarsan dagaalka F-35 oo Israa'iil u adeegsanaysay weerarada ay ka wado gudaha Iiraan. Kadib saacado baraha bulshada lagu wadaagay soo ridista diyaaradahan uu Mareykanku soo saaro, haddii la xaqiijiyona waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee dalku guuleysto inuu soo rido diyaaradaha F-35. Waxaa sidoo kale lasoo wariyay in xubin ka tirsan dowladda Mareykanka oo waddankaasi ama dhulka Yuhuudda xoogga ku haysato uu joogay isaguna ilaa iyo 5 jeer wax ka badan dhulka hoostiisa la geliyay si uu kaga badbaado duqeymaha Iiraan ay fulinaysay. Xaaladda guud ee Bariga Dhexe ayaa hadda waxa ay tahay mid cakiran, iyadoona marka ka dambeysa duqeymaha kala duwan ee la fulinayo ay noqonayaan kuwo isa soo taraya. Israa'iil waxa ay sheegtay in weerarkii lagu soo qaaday 70 qof dad gaaraya ay ku waxyeeloobeen, waxayna sheegeen inaysan wax dhimasho ah jirin. balse Yuhuudda oo markasta been abuur iyo warar aan jirin faafisa ayaa la soo warinayaa in duqeymihii xalay ay kaga geeriyoodeen
dad kor u dhaafaya 100 qofood, halka kuwa intaasi ka badan ay dhaawac yihiin balse ay qarinayso dowladda ama ay qarinayaan Yuhuudiyiinta. Xaaladda guud ee goobihii weerarada ee ka fulisay Iiraan ayaa hadda waxay tahay mid burbur xooggan ah. Ciidamada Israa'iiliyiinta ayaana waxay shacabku ugu baaqeen inaysan faafin karin sawirada aadka u foosha xun iyo burburka soo gaaray dhulkooda. Ciddii lagu arkana waxay sheegtay in ay cawaaqib xumo kala kulmi doonto. Hawada Bariga Dhexe waa mid mashquul ah, diyaarado kala duwan ayaa ka kala gooshaya. Goobaha shidaalka laga qaato ee ku yaala dhulka Israa'iiliyiinta xoogga ku haysatana waa mid jaam aad u fara badan. Shidaalka ayaana hadda cirka u kacaya, iyadoona Israa'iil marba marka ka dambeysa ay cabsi xooggan kala kulmayso Iiraaniyiinta oo ay ka dishay saraakiil muhiim u ahaa iyo saynisyahano dhanka nukliyeerka ah. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ku hanjabay inuu adeegsan doonaan nukliyeer haddii ay xaaladdu sidan kusii socoto. Muuqaalada ka imaanaya dhulka Yuhuudda xoogga ay ku haysatana waxay yihiin kuwo farxad gelinaya bulshada Iiraaniyiinta ah iyo sidoo kale dadka sida weyn u taageeraya. Iiraan waxay hadda garab buuxa ma haysato oo kama helayso wadamo fara badan oo Turkiga, Jordan, Masar, Ciraaq iyo wadamo kale ay ka mid yihiin, balse Yuhuudda waxay garab xooggan ka helayaan wadamo ay Mareykanka ugu horeyso, Ingiriiska iyo sidoo kale dowlado kale oo waaweyn oo qaaradda Yurub ah. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka xooggan ee u dhexeeya Iiraan iyo sidoo kale Israa'iil ayaa hadda waxa uu noqonayaa mid ka mid ah dagaaladii ugu xoogganaa ee dhowaanahan ka dhaca Bariga Dhexe, iyadoo hal maalin oo keliya in ka badan 300 oo qofood laga dilay Iiraaniyiinta oo ay ku jiraan saraakiil waaweyn iyo sidoo kale saynisyahano dhanka nukliyeerka ku takhasusay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisa ku sugan Bariga Dhexe ee heegan buuxa ay ku jiraan, wuxuuna sidoo kale ku booriyay muwaadiniintiisa inaysan u safri karin Bariga Dhexe oo uu sheegay inay ka jirto xaalad aad u adag iyo dab holcaya. Waxaa sidoo kale lasoo warinayaa in Iiraan hadda ay wado duqeymo kale oo qorsheysanayso, waxayna duqeymaha dooneysaa inay la bartilmaameysato xarumo iyo fariisimo ay ku sugan yihiin mas'uuliyiinta ugu sareysa ee Israa'iiliyiinta. Si walbaba ha ahaatee, Netanyahu waxa uu sheegay in dagaalkan laga yaabo inuu sii socdo in ka badan isbuuc, wuxuuna carabka ku dhuftay in dagaalka ay u diyaargaroobeen. Si kastaba, Iiraan weerarka lagu qaaday ayaase ahaa mid gaadmo ah, iyadoona marba marka ka dambeysa la sheegayay in Iiraan weerar in lagu qaaday aysan dhaweyn, balse si qarsoodi ah loo dhex dusay sirdoonkooda, lagana dilay saraakiil muhiim u ahaa dowladda Iiraan oo hadda iyaduna jawaabo aad u culus ka bixinaysa duqeymihii kala duwanaa ee Israa'iiliyiintu ay ka fulisay dhulkeeda. Hawadeeda ayayna dib u soo ceshatay. Internetka ayaana shaqeynaya hadda. Iiraanna difaac xooggan ayay ku jirtaa, jawaab kale ayay inay bixisana waa laga filayaa.